dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allow dhow Somaliland dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allow dhow ودرارتي للتاقي لدي عالمكيني دلانكينو نبض كساسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داوضي الميل كستواد نقد داونيسان دافها الدنيا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo safar ku gala bixinaya guud ahaan gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa uu gaaray magaalada Laascaanood dheer isagoo madaxweynaha Soomaaliland guud ahaan deegaamadii uu sii maray si ballaaran oo niyad samiyahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uga qaabileen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa markii uu gaaray gudaha magaalada Laascaanood waxa halkaasi ku qaabilay garaadada cuqaasha waxgaradka indheer garadka haweenka iyo guud ahaanba dadka horumarka iyo nabadda jecel ee degmada Laascaanood u dhashay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu mashaariic hor leh ka dhagax dhigay gudaha magaalada Laascaanood iyadoo horena loo tayeeyay guud ahaanba dhammaan hay'adaha dawladda xarumahooda kala duwan iyo mashaariicda arrimaha bulshada ay had iyo goor fuliso dawladda dhexe iyo dawladda hoosaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu soo indheeyay mashaariic horumarineed oo dhinaca wadooyinka oo gudaha magaalada Laadiba isagoo mashaariic kale oo dhinaca wadooyinkana madaxweynaha Soomaaliland ka dhagax dhigay gudaha magaalada Laascaanood dadweynaha waxgaradka cuqaasha haweenka iyo guud ahaanba bulshada reer Laascaanood ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland kula kulmeen Hotel Hamdi oo ku yaala magaalada Laascaanood halkaasi oo ay ku sugnaayeen guud ahaanba madaxda dawladda ee uu horkacayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud barasaabka gobolka Sool Yaasin Agas iyo sidoo kale wasiiro deegaanka iyo odayaal iyo garaado iyo waxgarad ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ku amaanay dadaalka hurda la'aaneed ee uu geliyay magaalada Laascaanood ee dhinaca horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland wadane Axmed Maxamed Maxamuud aadan iyo golaha wasiirada codkarka iyo culimada reer Sool haweenka iyo bahda saxaafadda iyo ciidanka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa dhammaan haddaanu nahay culimada cuqaasha iyo codkarka iyo haweenka imaatinka aad noogu timi maanta Sool degmada Laascaanood aad noogu timi mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa sida hagar la'aanta ee aad ugu heelan tahay in aad Sool maanta soo gaarsiiso gobolada wadanka ayaanu aad kaaga mahad celinaynaa mudane madaxweyne hortaada maanta waxa fadhiya garaadadii culimadii iyo cuqaashi iyo haweenkii reer Sool ayaa hortaada fadhiya hadalka badana iyagaanu siinaynaa ayagaa qiraaya madaxweynuhu sidoo oo maanta Sool wax ugu qabtay iyo horumarka ka socdaba iyaga ayaa qiraaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo marwada madaxweynaha xubnaha golaha xukuumadda xubnaha kale golayaasha qaranka garaadada cuqaasha waxgaradka kala duwan iyo haweenka ka soo qayb galay xafladda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib annagoo runtii odayaasha iyo waxgaradka ku wareejin doona hadalka siin doona waxaan jeclahay madaxweyne inaan kugu soo dhaweeyo magaalada Laascaanood oo ah magaalo madaxda gobolka Sool oo aanay ahayn markii ugu horeysay aad timaado adigoo madaxweynaha iyo adigoo aan madaxweynaha ahayn intaba ay noqoto aanay ahayn markii ugu horeysay waxaan filayaa danaynta madaxweynuhu uu danaynayo horumarka gobolkan nabadiisa iyo noloshiisa waxa marxaati u ah waa markii labaad ee sanadkan hadda intii uu bishay uu tago waxaan u maleynayaa inay noqon doonto gobolada
kuwa ugu badsaday madaxweynuhu cagtiisa ku maro waxaan isleeyahay iyadoo wakhtigu kooban yahay oo uu dardaarankaygu uu noqonayaa gobolkan wax badan baa laga qabtay oo hore looga qabtay maantana waxaa loo socday oo himilada madaxweynuhu ahayd in wixii hore ee ebyamay ee dhaqabsoomayna la furo wixii cusub ee la dhagax dhigayana la dhagax dhigo waxaan jecelahay odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradkeenu in badan waxaynu ka hadli jiray oo uu ayshuga keliyanu ka hadal lahaa nabadgelyo waxaan filayaa inaynu hadda ka gudubna xilligii reliifka ee aynu taa uun ka hadli jiro aynu horumar uu noqon doono hadalkeenu dhowr bilood ka hor waa lagu soo dhoweeyey maantana waa lagu soo dhoweeyey waxqabadka gobolka ka bilaabmay madaxweynaha iyo dawladdiisa ay ka bilaabmeen dadweynaha gobolka sool wuu soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol iyadadiilo iyo rajo wanaagsan iyo qalbi wanaagsan oo horumar leh oo dadku ay ku farxeen bayna dadka tustay wintaasiyo oo looga sii badiyo oo dawladdu sii kordhiso ayaanu rajaynaynaa ilaahayna ka rajaynaynaa dawladdana ka rajaynaynaa mashaariicda bilaabantay madaxweynaha uu hore gobolka uga bilaabmay iyo kuwa saaka la dhagax dhigayba oo waddooyinka ugu horreeyeen oo ah 4 kilomitir oo hore hawshooda ay socotay iyo 10 kilomitir oo madaxweynuhu saaka cag dhigay madaxweynaha iyo wafdi la socotay waanu ka guddoomnay waanu soo dhowaynaynaa waxaan leenahay waa arrimadii bulshada weeye hadday tahay waddo hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay biyo waxa weeye arrimada bulshaduna waxa weeye caalamka oo dhan bay ka dhaxaysa gaaliya islaamba meesha laga sameeyo waddada dhakhtarka iskuulka waxa weeye waxbarashadu waxa weeye caalamka oo dhan bay ka dhaxaysaa madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa adiga iyo dawladdaadaba horumarka gobolka sool ka soconaya gobolkanina dalka wuu ka hadhay markii hore hadday shaqaalo tahay iyo hadday waxqabad horumarba tahay laakiin hadda soo jeesi baa ka muuqda dawladdu u soo jeesatay oo madaxweynihii baa markii saddexaad ama afraad laascaanood ku soo noqonayo horta maalintiiba daadiga dawladdeedu waa ka tegi jirteen maanta nabadgeliyada laascaanood madaxweyne waa meesha ugu nasashada wacan ee ugu nabadgelyada wacan ee aad kaga raysanayso somalilaanta galbeed aad ka timi halkaasaa ugu nasasho wacan baan kuu sheegay xagga xisbiyada iyo ka qaylqaylinayeen balayaami nala joog madaxweyne halkana aan cidilo kugu qaylinayn horumarka nabadgelyadu sidaas aan kuu sheegnay laascaanood uga jiraa madaxweyne boqolkiiba boqol saaka waa lagu kalsoon yahay dadka gobolkan soolla saaka waxaan kugu dhaaranayaa dadka halkaa fadhiya saa u sacbinaya waa dadkii markii hore ka soo hor jiray somalilan dhammaan dadkii markii hore ka soo hor jeeday ee ka maqnaa bay ugu badan yihiin xilliya waxaa jirtay aanu 2-3 meelaan ku iman jirin saakana meel la iskala taagaa lalayo run baan sheegaya qodobkaasi waa qodobka labaad saaka dawladdaadii oo dhan wasiiradii ugu majorotsanaa eeda ahaay oo dhan baa maraya cidda aan xoogaalkaan ha koobto anu koobi maayo xogaya uga tag waxaan taabanayaa horta halkan meesha la yidhaha laascaanood degmada laascaanood konsolkii ugu horreeyey baa laga doortay oo maanta nimanka konsolka laascaanoodka ay horumar badan bay sameeyeen madaxweyne iyagoon weliba cashuur qaadin oo jielba jiiqa uusan soo gelin gobollada kala qaataan horumar badan bay sameeyeen wax aan lagu tallaabsan gobollada somalilan kaleba ku tallaabsadeen heer ay guri walba cagaftada ka geliyeen oo ay laascaanood ka qaarad su muuqato ayay marayaan waxaannu codsanaynaa maayirka xilka haya iyo konsolkiisa ah in dawladdu taakulayso oo ka bixiso kharashkaa badan ee ganawuxuun lacagta dawladaha hoose qaataan ee somalilaanta lagu qaatay magaalooyinka lagu dhisay ee horumarka lagu sameeyena waxaannu codsanaynaa madaxweyne lacagtaasi balilay konsolkaa soo gaadhiyo laascaanood si kastoo aad yeeshaan taas waa qodobkaa waa qaybtaa gobolka horumarintiisa iyo waxa uu u baahan yahay haddaan idin idhi
anigu indhoweyd waxaan waa ka gaabsaday uma wada warhayo mataqaanaa meelaha waxqabad doonaya laakiin sida odayaashu tilmaameen iyo maamulka gobolka iyo dawladaha hoose oo u qaybsan meelaha wax looga baahan yahay intay yidhaahdeen baan u daayey cidna wax ka sheegi mayno ammaana ninkii leh baa mudan qoladiinna reer Hargeysa waa ka warhaynaa halkan inaannu idinkala hadalno keliyana maaha haddaannu Somaliland bannahay oo raggani ninkii hore idinku yidhi dadkan meel walba jooga maanta waa wada Somaliland waxay ku noqdeen waa waxqabadka iskama noqon waa waxqabadka waxaan uga sheeg qoladiinna Hargeysa ee haddeerna maraysa annagu markaannu waxqabad aragno oo qabow aragno qabyaaladna igama aha waxaannu taageeraynaa dawladda Siilaayo iyo xisbigeeda yaannu taageeraynaa annagoo ka gelaynaa waxqabadka maanta ilaa Ingiriis ilaa dawladihii ilaa maamuladii Somaliland weli laascaanood maamul laga qabtay ma jiro waxaan leeyahay laamid laga sameeyey ma jiro maantana intaaba la dhagaxdhiga ha ahaatee ama inta lagu soconaya ha ahaatee wada laami bay diyaar u tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin si maqleen baa waxaasoo waxgarad isu yimaadeen sababta ay isugu yimaadeenna waxay ahayd in magaalada Laascaanood ama degmada Laascaanood waayadan dambe uu horumar ka socdo horumarkaana runtii waxa keenay nabadgelyada muddada ka jirtay nabadgelyadaasina mid cayaar ku timi runtii ma aha oo waa la garan karaa waxay u baahnayd geesinimo badan iyo runtii karti badan oo aan runtii koow ka ahayn oo ka qayb qaadannay oo annaga lafteedu aanu dhib badan kala kulannay laakiin midhaheedii baan u malaynaa baan annagu u qabnaa inay tahay taa maanta la guranayo waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa inta hadhayna in sidaasoo kale ay iyana noqon doonaan waxaa haddeer halkan fadhiya oo runtii ragga iga dhex muuqda rag badan oo berigii anigu aanu Hargeysa tegay aan ka soo noqday aan aad isu maagnay laakiin haddeer halka fadhiya oo iyaguna qiray maanta oo gartay in ay tahay in wax la wada qabsado oo dadkan ay horumarku uu u yahay waxqabadku iyaga u hadhayo Soomaalidu waxay tiraahdaa ishuyada midida aragta waxqabadka Laascaanood mudane madaxweyne dadku way arkaan oo u muuqda qodee qorraxdana sacab laguma qarin karo waa intaas oo aynu kala sii dhawaanaa anigu muddadii aan Hargeysa soo maray wixii aynu ku ballanay adig iyo xukuumadaba waad fuliseen way idinka mahad celinaya laakiin waa intaasoo waxa weeye haddana wax kale lagu sii daro waayo maalinteen wada hadlaynay hadalkeenu wuxuu ahaa dadku waxay u baahan yihiin waxqabad haddii waxqabad la helo wax waliba waa hagaagayaan aad iyo aad baan mar labaad kugu hambalyaynayaa hay'adihii oo soo gudbay oo maanta 12 haadooda ay joogaan waxqabadkii magaalada oo muuqda horumarkii mashruucyadii oo muuqda intaasoo dhanima waxay ahaayeen wixii aynu ku ballannay waan kaaga mahad celinaya adiga xukuumaddaada shacabka reer Laascaanoodna waxaan leeyahay de nabadgelyadu waa muhiim weey nabad baa naasna luga leh inuu nabadgelyadeena ilaashano horumarkeena aynu ku talaabsanaana inaga ay danteenu ku jirtaa gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka booliisku iyo maamulka gobolku aad bay u shaqeynayaan waa runtii Yaasiin waxaan ku jecelahay fariintii shacabka ka timaada ayuu toos u gudbiyaa waa gudoomiyihii kaliya ee wixii shacabka ka yimaada toos u gudbin jiray buu noqday taana waan ugu hambalyaynayaa sidaa odayaashu ay sheegeen sida odayaashu ay sheegeen waxaan u malaynayaa hadda waxaa la mishin gareeyay booliisku waa lafdhabarta gobolka wey waa muhiim wey saldhigyo booliis baa la dhisay
waxa weeye hal gaari baa magaaladu ay lahayd mudane madaxweyne gaarigina waa dhacay habeenkii ciid isagoo gol ku jiro dhacay saldhigyada booliska ee saddexda ah wax gaadida ma haystaan waa in taatayadeeda kor loo soo qaadaa xagga nabadgelyada waxa weeye dashir baa coodin la ka dhacay nabadgelyo fiican baa ka dhacday hawd waa in la sii adkeeyaa oo dadka u baxsanaya nabadgelyo darrada waa in gacan bira lagu qabtaa oo la iska kaashadaa halkan shaqaaqo yar baa ka dhacday dorada caynabaanu tagnay insha Allah meel fiican baa wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka hawlaha guud iyo waxgaradkii iyo salaadiintii baanu soo dhignay 14 cisho ka bacdina insha Allah waanu fadhiisan doonaa hawsha taleexna waxaan u malaynayaa madaxweyne waxa arinkaagu yahay amba faynaya waxba hay farin diyaar inaad u tihiin waa ognahay insha Allah taasna waxa weeye khayrkeeda ilaahay wayna siin doonaa idinkana waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay nabad celiyo idinkoo nabad qabana inuu soo noqono airportkii mar haddii waxa weeye airportkii la dhisay oo diyaaradii ay maanta degayaan oo aanu ognahay diyaarado kale oo kaargooya oo deegaankan ka soo jeedana ay imaanayaan 2 kiiloomitir ee laamigaana inaad noo saartaan jecelnahay wadada 5 kiiloomitirna qurba joogta iyo magaalada waxaan leenahay ha loo diyaar garoobo sidii magaalada airportka ha loo diyaar garoobo wax walba yeynaan maxkuumadda ka sugin waa inaynu inaga laftigeenu contribution qayb ka qaadanaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha dalka anagu aan dooranayo dadweynaha sharafta leh iyo madaxdayada dawladda iyo murwada aaminada ee dugsiga noo wada ah iyo dadweynaha sharafta leh salaaliga daacado wadnaha ducihiisa iyo diirkayga ka soo goodayo farxad lagu daabacayo anigu idin la damcayba diyaaraan idin laahay miyaad igu diidanteen waxaan lahaa madaxweynaha dalka anagu aan dooranayo dulmiga qabrigiisiyo dariiqa cadaaladda oo daljile Axmed Maxamedow sharciga waliga u dood anagu aan ku dugsanay daryeeshay maatida dayacan ubaxna ku daadinay dalkaaga u hagar baxday hadaalina diid hurdada ducana ku raacinay dadaalkaaga ku soco madaxdayada qaranka iyo shacabka qiimaha leh oo salaaligu qaaliyo qalbiga iyo laabta iyo qaarkayga ka soo goodaan anigu idinku qurxiyay miyaadiga qaadate afkii kale waxaan lahaa shacabka qiimaha leh oo qisiya baan arkay qaxooti miyaynu nahay maqaarad kale aan ka nimid maqiil baan haysanaa war qaranku hawshu lahaa dad gaara maxaa u qoray maxaan uga wada qadnaa hawshu hadaan la isla qaban baqruux bay yeelataa qaafkii kale waxaan lahaa shacabka qiimaha leh oo masalan soo qaato oo geelu markuu waaye qado roobkii sanadaan u qaban baraagu qalax noqdaan ceelasha uu sii qulqulo waraga hadaan qaar hormarinina wadaanta uusan qaban qaybina aanay kala horayn nirgaha loo qaybin wiil goboladana loo qotomin hawshu hadaan la isla qaban maqruux bay yeelataa afkii kale waxaan lahaa war shacabka qiimaha leh oo qisada meeshaan ka waday haddaan kala qeexaya qayb yay noqon bulshadu khilaaf iyo ira ku iman qaranku yuusaa ku dumin maatidayaan lagu qaldamin dagaal iyo qararac iyo qaxbay soo wada mareen qalbi jab yaan loogu darin qaranku hawshuu lahaa iyo midnimada iyo qarannimada qof walbo muwaadilow adigu dhinacaaga qabo qodob weeye muqadasa qorshuhu waynoo sidaa sool iyo sanaag iyo cayn sabaradeed iyo soonaha tagdheer iyo sama jecel hargeysada fanka sare u qaadiyo sarihii barbara ee khayraadka eebasi iyo boora masalkeed iyo saaxil iyo nugaal iyo saxan saxa udgoon iyo sool baan ku sugan oo saldhigaygu waa qaran samahan ka taliya sokeeyo ma nabadba intaasi kadib wasiirada wasaaradaha caafimaadka arrimaha gudaha arrimaha dibadda warfaafinta iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax